بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. dhamaan ardayda Soomaali Star Online Training casharada kala duwanaa baan weli ku guda jirnaa iyadoo casharadeenii PowerPoint aan sii marayno markaa waana muhiim jiddan taas waxaan kusoo dhawaaneynaa blogspot somalistaronline.blogspot.com iyadoo casharo kala duwan hore aan usoo qaadanay baan sii maraynaa cashirkii labaad PowerPoint inaan ku qaadano Microsoft PowerPoint iyadoo casharo fara badan hore aan usoo sameynay waxaan soo gudagalaynaa cashirkeeni maanta markaa pagekeeni professional baan soo gudagalayaa markaa hore waxaan usoo aragnay Microsoft Word oo dhameystiran, waxaan soo aragnay Microsoft Excel oo dhameystiran, waxaan soo aragnay Microsoft Access oo dhameystiran, waxaan sii maraynaa Microsoft PowerPoint inaan soo dhameystiran lesson 2 baan usii gudbaynaa iyadoo dhamaan ardayda ay halkaa lasoo wada xiriiri doonaan. Hore waxaa loo soo arkay Word, waxaa lasii arkay Excel, waxaa lasii arkay Access, hadda waxaa lasii marayaa PowerPoint. waxaa noo dhiman QuickBook Accountant anagoo soo diyaarinaa iyadoo dhamaan marka ardayda ay halkaa lasoo xiriiri doonaan ayaa waxaan sii diyaarsanay pagekeena maanta markaa waaba inoo sii diyaarba halkaas aan kusii diyaarsanay cashirkeena anagoo sii qoranay presentationka marka horaan kasoo gudagalayaa waxaan ka bilaabayaa fartan inaan qurxin ku sameeyo. halkaa waxaa iga maqan toolbarkeygii markaa right click halkaa haddaan doorto oo quick access toolbarkaan imaanaya. quick access toolbarka markaan imaado minimize ribbon oo isoo baxay toolbarkeygii halkaasaasaa lagu keenay. marka halkan waxaan rabaa formatting aan ku sameeyo fartaan qoraalkeedii highlight baan saaranayaa oo kaliya format baan dooranayaa fartii tii quruxda badneed baan halkan ka dooranayaa mid har leh baa jirta tan harka leh baan ku darsanaynaa oo harka hoos naga siinaysa waa ka qoraalka har baan hor naga siinayaa. tan marka waa qofkii soo diyaariyay looma baahna. halkan waxaan soo gelin doonaa halkan intaan ka bixin oo qoraalkayga inaan ka bixin waa ciwaanku halkaan noqonayaan kaga hadlayno ama company aan ka hadalno ama education aan kaga hadalno wuxuu noqonayaa halkan ciwaankeena sare loogadeennana halkaan aan soo gashan doonaa waa ka insert dooro picture dooro kaliya oo sawiradaadii halkan kasoo dooro oo loogadii halkan kasoo gasho. marka loogadii waa muhiim jiddan inaad halkaas soo gelisaan ama company haddaa u shaqaynaysaan ama iskuul ama jaamacad haddaa kaga shaqaynaysaan oo aa u shaqaynaysaan programkan ku shaqaynaysaan waana sii quruxsanaynaa loogadeenii dabcan formatting baan kusii sameynayaa loogadeydii halkaasaan kasii format garaysanayaa loogadeydii waa taa iyadoo macnaha shadow effect aan u sameeyey. okay waxaan soo gashanayaa marka kale waxaan soo gelinayaa sawiraan raba halkaan soo gelinayaa qaybahan kala duwan kaga hadlo oo ardayda aan ugu talagalay usoo bandhigno waa sawirada lagu soo bandhigayo sawirada gabdhaha iyo wiilasha qaybta gabdhaha halkaan waa qaybta ila soco qaybta gabdhaha halkaan waxaan ka dhigaynaa qaybta wiilasha iyadoo aan audio iyo video la soo gelin doono arki doonaa. okay halkaan aan quruxsiinta ku bilaabayaa marka formattingka waa muhiim jiddan inaan sameyn karno. format baan dooranayaa farta halkaan ka raadinayaa taasaan qaatay mar haddaan taa qaatay tan waa ii quruxsantahay intaa ma dhaafinayo. qaybta wiilasha iyo qaybta gabdhaha sawiradan usoo gelinaya arka marka halkaan sawiraan ka dooran doonaa. halkaan sawiro kala duwan baa igu jira tan baa igu jira computerkaan soo gelinayaa. halkaan waxaa igu jira sawiro fara badan oo ugu talagalay ardayda inay ka faa'iideysan karaan. halkaana waxaan soo gelinayaa sawiro kale oo ayagana aan ugu talagalay ardayda oo halkaan igu jira. halkaana waxaa igu jira sawiro kala duwan marka waxaan tusin doonaa ardayda sawiradeenii faraha badnaa inaan halkan ku arki karno oo ardayda ay ka wada faa'iideysan doonaan waana muhiim jiddan taas marka iyadoo cashiro fara badanna aan soo aragnay. marka sawirada halkaan noogu jira ayaan soo bixin doonaa oo ardayda accesska ku qaadan doonaan. waxaan dooran doonaa picture waxaan dooran doonaa halkan sawirkaasaan soo gashan doonaa. marka step by step ila soco wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed ayaa ka faa'iideysan doona cashiradan waana dhammaan Somali Star Online Training cashiradii kala duwanaa. marka sawirada ardayda aan kusoo bandhigi doono anagoo cashirkan PowerPoint ku sameynayo oo cashirkii labaad aan sii marayno ayaan halkaas maraynaa. marka sawiradan sida loo qurxiyo waa muhiim jiddan inaan barano. halkaas soo gal qaybtan kale waxaan soo gashan doonaa sawiro kale aan soo gashan doonaa waa qaybta kale waan qoraynaa qaybta kale oo sidaan designka ugu sameynayno unbaa muhiima. marka halkaan ciwaan yar baan gelin doonaa waana baran doonaa layoutyadaan sida loo sameeyo finally ugu dambeyntii waan arki doonaa si fiican anagoo u sameyn doono. ciwaan yar baan halkan gashan doonaa aan kaga hadlayno sawirada xayawaanada
xayawaanka iyo xayawaanka duula sawiradiisa halkaana xayawaanka duula taasina waxaa lagu soo bandhigi doonaa ardayda kala duwan waxaan qurxin doonaa formatting ku sameyn doonaa fartaasi waxaan ka bedelaynaa mar walba farta halkaan si ay farteen u noqoto mid design-keedu qurux badan yahay waana muhiim jiddan taas marka halkaan waxaan soo gashan doonaa sawirkii xayawaanada kala duwan sawirkoodii baan soo gashan doonaa kan haddaan soo gashado waa kan sawiradan sidaan formatting usii sameyn doonana waa idin tusin doonaa formatting qurux badan baan sameyn doonaa waana wada arki doontaan tan waxaan soo gashan doonaa tomato yaanyadaasaan soo gashan doonaa iyadoo aan wada arki doono si qurux badan inaan u sameyno marka cashiradii waxaan ku guda jirnaa marka sawiradan formatting baa la sameynayaa mar walba oo aan cashir baranayno waxaan sii baranaynaa sidaan usii quruxsan lahayn formatting baa halkaan tegaya ila soco marka halkaas sawirkan haddii aan u baahano sawirkan inaan u sameyno har ama haddaan u sameyno design qurux badan waa u sameyn karnaa kana sidoo kale halkaan iyadoo aan sii arki doono sida shadow haddii frame aan gelinayo sawirka iyo haddii kaleba saasaan ka dhigayaa shadow effect baan ku arki doonaa waa maxay marka shadow effect cashiradii wordkana waa kusoo baranay horey anagoo ugu soo baranay cashiradii Microsoft Word shadow effect wax kale maaha markaan formattingka joogo buu isiinayaa wuxuu isiinayaa formatting buu isiinayaa iyadoo aan arki doono picture effect inaan sameyn karno waata shadow effect aan ku sameyn karno har aan u sameyn karno oo har aan sii gelin karna halkaan waxaan sameynaynaa 3dx baan u sameyn karnaa sawirkeeni noocaasaan ka dhigi karnaa 3dx haddaan doorto 3dx wuxuu ka dhigayaa sawirkeygii noocaan rabno ayuu nooga dhigayaa effect software 3dx imow halkaan saarta kaga dhig marka 3dx kaagii mid walba aan imaanayno muuska igala dhaqdhaqaaqayo iga raali noqda marka waxaan sameynayaa formatting markaan doorto picture effect 3dx ka kuwaana la siinay hadba si uu noqonayaa hadba saan ka rabaan ka dhigaynaa sawiradeeni hadba sida aan rabno saa waa u deyn karnaa saa waa ka dhigi karnaa saa waa ka dhigi karnaa saa waa ka dhigi karnaa annaga ay nagu xiran tahay marka saan ka dhigayna 3dx marka wuxuu sameynayaa sawirka ayuu qaab kale kaaga dhigayaa hadda sawirkan haddii aan doorto kaa kasoo tago oo aan kan doorto kan wuxuu iiga dhigayaa oo aan doorto picture effect 3dx ka aan aado 3dx saan rabaa ka dhigi karaa sawirka marka naqshadiisii annaga ay nagu xiranta marka ardayda kala duwan casharada kala duwan oo aan qaadan doono way badan yihiin casharadaas sida fiidiyoyada ugu habeyn lahayn meeshaan dhexdeeda ugu qurxin lahayn iyo sidaan kala habeyn lahayn waan baran doonaa waana muhiim jiddan taas marka taana sawirkaan saasaan ka dhigi karaa okay sawiradan baa ii soo haray kan waxaan ka dhigi karaa inaan halkaan imaado 3dx haddaan ku xiriiri lagu yidhaahdo oo 3dx la dooro waan la dooran karaa 3dx oo kale sawirkeygii hadba qaab buu yeelan doonaa ila soco marka idakoo ka faa'iideysan doona dhammaan ardayda Somali Star Online Training casharada kala duwan ka faa'iideysan doona 3dx marka wuxuu ku siinayaa hadba qaab buu ku siinayaa sawirka ka haddii aan doorto saas uu siinayaa kana sidoo kale 3dx haddaan ku xiriiriyo wuxuu i tusinayaa sawirkeygii qaabka uu noqon karo qaab kale uu ka dhigayaa qaabkan hadba qaabka aan u rabno kaa waa u dooran karnaa saa waa u dooran karnaa saa waa ka dhigi karnaa hadba annaga nagu xiranta si waan u foorarin karnaa saas waan ka dhigi karnaa foorka saas waan ka dhigi karnaa saasaan ka dhigi karnaa saasaan ka dhigi karnaa saasaan ka dhigi karnaa saasaan usii dooran karnaa saasaan usii dooran karnaa saas haddaan u doorana foorkaasuu noqonayaa okay casharadaana fara badan baa inoo soo socdo arranging baan ku baran doonaa saan u sameyn lahayn waxaan baran doonaa sidaan aan usii mahadhowdi markaan aan designka sameynayno oo farta iyo qaabkeedii saan usii qurxin karno farta kala duwan qaabka aan sameyn doono emission baan baran doonaa saan u sameyn doono slide show baan baran doonaa waxaasoo dhan baa inagu soo socdo iyadoo cashiro kala duwan aan qaadanayno waa ardayda kala duwan Somali Star Online Training cashirkii labaad ee PowerPoint baa halkaan inoo joogayo oo sawirada iyo sidaan formatting ugu sameyn karnaa ku baranayni maanta iyadoo cashiro kala duwan hore ay noogu soo socdaan sawiradan shadow effect markaan gelinayno iyo fartaan harka markaan u keenayno qaabkaan usoo sameynay iyo loogadeena korba inaan soo gashano waa cashirkeeni labaad cashirkii hore wuxuu noo ahaa introduction kanna waa cashirkeeni labaad oo maanta aan ku qaadanaynay marka shadow effect ardayda aad bay u barteen waxay kaloo barteen 3D effect hadda yaanyadoo kale wuxuu ka dhigayaa saas hadba saa doontada ka dhigaya hadda sawirro caalami ah aragtay ama sawirro la soo sameeyo si qurux badan qaab kale loo soo sameeyo hadda aragtid ama naqshad kale lagu soo sameeyo hadda aragtid 3dx way
maaha wax kale maaha. halkaana lagu format gareeya ama word ha ahaado ama powerpoint ha ahaado, halkaasa lagu qurxiyaa oo 3dx ka lagu sameeyaa. waana baranay sida shadow effect lagu sameyn karo, waxaan baranay sida 3dx lagu sameyn karo, waxaan baranay cashiro kala duwan. marka waa lasoo koobi karaa sawirkaagii oo waa la gelin karaa gabigiisa soo uga bixi karaa. marka shadow effectiga wuxuu noo sameynayaa inuu har u sameeyo, har buu u sameynayaa iyadii har baan ka wada dhigaynaa, halkaasaasay noqonaysaa. okay, iyadoo cashiro kala duwan hore aan usoo baranay marka Somali Star Online Training cashirada kala duwan, marka step step baan u qaadan doonaa iyadoo cashir walba aan qaadanayno aan sida formatkiisa aan kaga hadli doono. sharp effect iyadan wuxuu ka bedeli doontaa, iyadan waxay ka jari doontaa intaan rabno. haddii aan rabno saasaan ka dhigaynaa yaanyadii oo waxaan ka jaraynaa qayb baan jaraynaa oo hoos baan ka jaraynaa, waana ka bixinaa, way ka jaran tahay, hoos bay ka jaran tahay oo qayb baa la jaray. marka iyadoo cashiro kala duwan ay noo soo socdaan noo imaan doonaan ayaan halkaas sii maraynaa. marka step by step baan u baran doonaa. ardaydii kala duwaneed oo cashiradan jecleed ayaa halka ka faa'iideysan doona. marka borderka haddii aan gelin doono, aan frame gelin doonaan halkaan kasna ka gelin doonaa oo frame aan ugu talagalo inaan frame geliyo kale, saasoo kale frame buu gelinayaa hadhow, saas frame bay ku jirayaa. okay, marka cashirkeena maanta intaa inoo joogo, inta cashir kale isaga imaan doono waa dhammaan ardayda Somali Star Online Training. waxaan kusoo noqonayaa page-keeni professionalka ahaa. marka Somali Star Online waxaan la soo xiriiri doonaa professional English and computer teaching wixii ah, iyadoo page-keena somalistaronline.blogspot.com aan ka heli doono. sidaa darteed fi amaan allah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.